ما مضى فاتا وحي تجي إن أنا قلبي قاعد وصار نقنقنين وأنا كردبين وأنا ذهبين كي كسيحان واين وأيو إلى هاي وحى النسية وحلا إلى هذا إلا وقاس وادواوين إلا وين إنه لا يابصناي إنه لا أنا إلا وجيبها يقول بطي هددنتي النبوي هدي وحو البعض حصوصا توحد الله ويستابعان وشرين وذاكرة هذا هي حصوص هذا وحلا وحي مروقا هابا أنا كتجينين ما بعد سيحان كرتين با يريدي بعد الله ويسا بلا يدي كقول عدد الله ويسا وحي كل في بعد الله ويسا ضن إيام مصلحة بإنوتها وعلى هذا تذكر الماضي والتحزن قتل للإرادة قفكي أو حصوصا وحي دافي أو عيل إيا عرب ونقو عيل كما كرن نغضه وحوي قتل للإرادة قفك قوان كيسي يهر مركو صمين لها بيكدي ليسا إذن عند العقلاء يطوى ولا تروى ولا إسكالله با صفحة ولقو مع العليو لما قفك هرتي سوني تالم معها وحي دباتوينها إيا وحي دافي إلهي با وحي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت تاسوا أمتك تي سيدي دا كل دافو إذنكو شقيستوي يومك يومك وحكم إذا النصائح مالنتاد ومالنتادي مالنكا تاغنتهاي مالنا دسكال هذا هيوي وادكو حسابتمي كرتو إذن مركا آد قبلكو وكو دعو صباح ديها سوغين مركا واغو كو بريانا قلبتيها سوغين وقتك آد تاغنتهاي ونكو حسابتا عمرك آغانا كسو قاد مالين كليين وياي مالنكا ساعده سسندو قيبي دقيقته سنة أيامه إذن مركا كفا إذا سيو كرافي dadkana had iyo jeer waxa ay ku kala horumaraan waqtiga jooga kolba sida ay uga faa'iideystaan Abdullah ibn Mas'ud Allah ka raali noqdo waxa uu lahaa waxa aan ugu muruga badnahay maalin intuu isoo galay iga baxay oo cimrigaygina naaqusay amalkaygina aanu kordhin cimrigaygu wuu naaqusoo maalinkaasi waa idhaafay laakiin amal maalinta ii kordhay ma jiro ila cilmiga laftiisi waa amal waxa aan ugu muruga badnahay waa kaasb ilaahay baa wuxuu wa khud ma aataytuk wa kum min ash-shakirin waxa aan ku siiyay qaado kuwa mahadnaqana noqo nasaa'ixa waxa kamida utruk al-mustaqbal hatta yaati mustaqbalka soo socda iska daa ilaa intuu imanayo dad fara badan baa iyagana waxa dhibaato ku haya mustaqbalka iyo warwarkiisa gaajay ka warwarayaan faqri bay ka warwarayaan balaay iska warwarayaan marka warwarka faraha badan ee mustaqbalka qofka haystaana waxyaabaha nolosha ka xumeeya way ata amrullahi fala tasta'jiluhu arrimaha mustaqbalka waxba haddajisinaba ayaa rabbi subhanahu wa ta'ala oo iyada oo qofkii ahdaafta iyo dhacdooyinka uu ka horumaro waxay noqotaa ijhaad umurtiisu way dhicisaa qofka oo wuxuu ka dhignaanayaa qof midhihii goosanaya intaanay gaarin waqtigii bisaylka marka waxaad ka warwartaa ayuu jirin shaydaankuna waxa mustaqbalka la xidhiidha ee warwarka uu kaaga hayo ee aad ka seexan laadahay iska dhig ilaahay baa wuxuu ash-shaytaanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla shaydaanka waxa kalgeedka shaydaanka la yiraahdaa mufsidka magaca la baxay waxa uu idin yaboohayaa faqri iyo foolxumo mustaqbalka ku saabsan ilaahayna dambi dhaaf iyo fadli iyo dheeraad buu idin yaboohayaa nasaa'ixa waxa kamida kayfa tuwaajih an-naqd al-aathim hadiya jeer qofka bani aadamka ah dad fara badan baa ku soo jahaysan waliba qofka marka ilaahay waxyaabaha tafdiilaadka dheeraadka uu wax ka siiyo indhuhu way soo eegayaan afkuna wuu hadal hayaa gacmahana waa lagu fiiqayaa haddii ilaahay aqoon siiyo hadduu adduun siiyo hadduu awood siiyo wixii ilaahay uu qofka siiyay dheeraadaba waa lagu hadal hayaa idan markaa taasina yay noqon wax niyada ka wasakheeya waxaad ogsoon tahay nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam illa caayay oo qaar waqti hore joogay iyo oo waqtigiisii ahaa iyo qaar hadda jooga labadaba inay caayeen baad ogtahay nin shaacir baa waxa uu xasadul fata إذا لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصومه
qofka dad badan baa marka ay dadaalkiisa gaari waayeen cadow u noqday lana murmaya marka ha ku fikirin an takuuna maqbuulan lada aljamiic saaliman min alcuyuub cinda alcaalam hada mustaxiil inaad dadka agtooda oo dhan noqoto mid laga qaadanayo oo cidi aanay ka hor imanayno gacmo furan lagu soo dhowaynayo taasi maya rasuulkii iyo rusushii ilaahay baanay ka dhicin sidaa daraaddeed haddii qaar ku caayaan ama wax kaa sheegaan in badanoo ku ammaanaysa in badanoo ku taageersan in badanoo waxa wanaagsan ee aad waddo soo dhowaynayaa jira marka taasina inay nolosha dhadhankeeda kaa lumiso maaha nasaa'ixa waxaa ka mida laa tantadir shukran min axad qofnaba ha ka sugin inuu kuu mahadnaqo oo dadka ha odhanin wax wanaagsan baan wadaa oo cilmi leh oo infaaq leh oo waxtar leh oo dan guud leh maxay wax iiga sheegeen ama ay igu mahadnaqi waayeen oo marka xafladaha laga hadlayo iyo marka warbixinaha la qorayo iyo marka taxliilka la samaynayo haddii laguba soo qaadi waayo dee ka fikir in ilaahay agtiisa un lagu soo qaadi doono oo xuska ilaahay unbaad ka sugaysaaye laa tantadir shukran min axad haddaad doonayso noloshu inay macno kuu samayso dadka mahadnaqooda iyo ammaantooda waxba ha xiisaynin ilaahay baad abaalmarin ka sugaysaa subxaanahu wa tacaala hadday macruufkaaga diidaan iyaga oo u diidaya liannaka axsanta ilayhim xataa inaad u samafashay adoo u samafalay hadday kuga soo qaadi waayaan ha ka sugin ilaahay baa wuxu uhi wamaa naqamuu ilaa an aqnaahum allahu warasuuluhu min fadli waxa ay kula dagaalameen rasuulka iyo mu'miniinta in ilaahay iyo rasuulka uu qani ka dhigay ilaahay baa qani ka dhigay rasuulkii baa qani ka dhigoo wax siiyey haddana nacaybshiyo iyo colaad bay kala hor yimaadeen ee mabay u mahadnaqinba qur-aanka waxa ilaahay uu tilmaamay qofka gaalka ah marka hore ilaahay buu baryayaa marka uu dhibaatada rabbi ka dulqaadana ilaahayba uma mahadnaqo marra kaan lam yadcunaa ilaa durrin masa wuu iska sii soconayaa waxaabaad mooddaa kii aanna baryinba marka addoommo badan baa markay baahnaayeen ilaahay baryay subxaanahu wa tacaala markaasuu ilaahayna dhibkii ka dulqaaday kadib ilaahay bay u mahadnaqi waayeen adiguna waxba mahadnaqa ka sugin kuwooda aad macruufka u samayso dhib badanoo dareemi lahayd markaa waad ka nasan doonta nin baa gabyayoo waxa uu mahad iyo abaal ka waayey inaanuu u samafali jiray oo uu koriyey kiibuu ka cawdayoo waxau idhi ucallimuhu rimaayata kulla yowmin falamma ishtadda saaciduhu ramaanii maalin walba waxaan baraa shiishka waxaan baraa horumarkiiyo awoodda markuu muruqiisii adkaaday anigaabuu igu dhug bartay buui aniga laftigaygii ayuu shiishkii iga bilaabay intuu wax igu tara iska daayo marka ummad badan oo aad ixsaan u samaysay ayaanad abaal ka helayn qaar kale ayaa waxa wanaagga ah laga yaabaa inay kugu xaasidaan cidnaba mahadnaqa ka suginaan ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala waxyaabaha kuu dhib yarayn kara sacaadada ay ku siin kara weeye waxaa ka mid a nasaa'ixaas alixsaanu ila alkhayr inshiraaxun lisuduur waa kollay nasaaixna weyn hab qaaciidana way u socdaa alixsaanu ila alkhayr inshiraaxun lisuduur inaad dadka u samafasho laba midun bay noqonaysa inaad dadka adigu u ixsaan samayso ood u samafasho iyo inaad dadka adigu ka godob qaadato marka ta fiican ee had iyo jeer nolosha sacaadada iyo wanaagga u keentaa waxa weeye inaad dadka u samafasho arrin iyo adduun iyo aqoon iyo awood wixii aad ummadda dheer tahay isku day inaad noqoto kas wax siinaya ee iyaga aan waxba ka sugaynin marka waxaa la yidhaha aljamiilu kasmi waalmacruufu ka rasmi waalkhayru ka dacmi marka shayga jamiilka la yidhaahdaa magaciisaasunbuu la mid yahay shayga jamiilkaahi jamaal buu keenaa iyo qurux macruufkuna curfi iyo wanaagunbuu keenaa wixii wanaageed samaynaysa waxaa la yidhaha awalu lmustafiidiin iscaadu lmutafadiliin dadka had iyo jeer tafadulka iyo dheeraadka leh ee dadka isku daya inay waxu taraan waxtarka u horeeya iyaga ayaa leh waxtarka u horeeya iyagaa yeelanaya ilaahayna saasuu qur-aanka ku ammaano waxau uhi wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi alaclaa abuubakar bay ku soo degtay baa la ydhaha aayaddu cid alla cid uu wax kaga doonayay ma jirin cid abaal ku lahaydna ma jirin wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza marka abaalka ilaahay unbuu ka sugayaa idan ku xisaabtan
inaad dadka u samafasho taasaana adiga nafis ku ah mar haddaanay gacan kaa sugayn aanaad adigu iyagu aanay wax kaa sugaynay iyaga un ay wax kaaga maqan yihiin nasaa'ixa waxaa ka midoo ka sideedaada udrud ilfaraaqa bilcamal udrud alfaraaq bilcamal haddaad doonaysa sacaadada nolosha iyo maskaxda iyo qalbigu inay ku nastaan waxaa la yidhaahda faraaqa oo ah qofku jaaniska uu haysto inuu ku buuxiyo shayga camalka la yidhaahdo walow ciyaar jidhkiisa dhisaysa iyo tababaraan khayrka ka mashquulinna ha noqdabe oo waxaa la yidhaahdaa alfaariquuna fi lxayaa hum ahlu lirjaafi washaa'icaat dadka had iyo jeer jaanis kale ama faraaqa hayeen shaqaysanaynin waa kuwa ugu muran badan ee ugu munaafaqad badan ee ugu isku dir badan sidaa daraaddeed baa munaafiqiinta ilaahay uu ka warramo wuxuu yidhi raduu bian yakuunuu maca alkhawaalif waxay raalli ka noqdeen munaafiqiintu intay jihaadkii ka hadheen oo howlihii caamka ahaa ee ummadda ay ka hadheen inay maca alkhawaalif dumarka guryahooda joogay ku hadheen marka howloo dhan kolkii ay ka hadheen hadal bay isu taageen foolxun inay tiriyaan oo aad iyo aad ay wax uga sheegaan dadkii mu'miniinta ahaa rasuulkuu horkacayay sala allahu calayhi wasalam waana dhab weeyeoo sidaa culimmadu ay sheegeen in fara badan dadkeenna waxa ama qaylaadda ku kalifaya iyo balwadda waxa boolatiigga iyo fadhi kudirirka ku kalifaya dee waa faraaqa qofku hadduu 10 saacadood shaqayn lahaa 2 saacadoodna midna uu sii socon lahaa midna uu soo socon lahaa 4 saacadoodna uu cibaadaysan lahaa waxa laga yaabaa cidba kii la hadlaba wuxuu odhan lahaa fadlan lacagi weydii wakhti kuuma hayee adigoo iga raallaya wakhti oon kuu hayaa ma jirayo wax hadalan toona aan karayaae waan soo daalo ama waxbaan karsanayaa ama dharkan maydhanayaa ama in yar baan yaro nasanayaae hore ka sii dhaqaaji buu odhan lacag waan ku siin karaa laakiin wakhti kuma siin karo waa sida dadka adduunyada u orda ummadaha kale maanta ay u socdaan qofku waxa laga yaabaa in ay uga sahlan tahay inuu lacag ku siiyo inuu wakhti ku siiyo salafuna saalixna saasay hayn oo wakhtigooda diinta uga faa'iideyn jiray axad aclaami salaf baan jidka isu taagayo kolkaasaa wuxuu ii joogaa su'aalku weydiiye lamuu ballansanayn marka horay buu ka dhaafay maalintii labaadna wuu dhaafay maalintii saddexaad buu ku dhagayo wuxuu maalin walba waad dhaafaysaa bal maanta isu kay taag wuxuu horta qorraxda jooji qorraxda marka aad joojiso ayaan aniguna joogsan doonaa intay qorraxdu socdo anna waan socdaa dee kol haddaad qorraxda la tartamaysa isku qolo ma ihine bal ka sii dhaqaaji buu marka udrud ilfaraaqa bilcamal haddaad doonaysa inaad nasato oo aad mafsuuq noqoto taa ku dadaal sidaa daraaddeed baa 50% dhakhaatiirta caalamka cilmu nafsiga ka hadlaa waxay leeyihiin waxyaabaha u kasbi kara qofka sacaadada iyo inuu raaxaysto maskaxdiisu ay nasato aan u warwarin waxa ka mid ah in waqtigiisu buuxo oo shaqaynayo waliba qofka maskaxda ka shaqeeya waxa ka sii mafsuud iyo farxad badan qofka muruqa ka shaqeeya bayda sida midal dadka fallaaxiinta beeralayda dadka dhismayaasha ku jira dadka xamaaliinta ah yaciishuna kala casaafiir fi sacaadatin wa raaxa sida shimbirahaasi ay u geeraarayaan kaynta dhexdeeda ay isaga faraxsan yihiin xamaaliintaasi iyo dadka dhisaya iyo heesa iska tirinaya waxa laga yaabaa kii dirayna ee taajirka cumuumiga ahaana ee lacagta u hayeyna inuu maskaxda isayo warwar uu nafta hayo in reer Hargeysa kamid ahaaba wuxuu xisaabinayay xisaab xil buu ku sameeyay meheradiisii say saaxiibadii noo sheegeen marka uu waday labadii habeenimo markay marayso ayuu arkay cashadii oo agtaala oo aanu cuninba wuxuu arkay isagii oo aan seexanin luloonayninna xisaabtiina aanay dhammaanin xamaalkii meesha ilaalinaya waashmaanka ka ahaayo halkan khooro kala bixinaya ayuu arko qarracda haya kadibna wuxuu war meeshan aniguna ku rafaadsanahay ragga raaxada haya waa raggan wixiiba uu iska laabo iska seexday ninkana raaxadii helay buu aniguna rafaadkeeda ku jiraa idan markaas shayga camalka la yiraahdo aad buu muhiim yahay waxa kamid ah qodobka sagaalaada min asbaab as-saada la takun imma'a ha noqonin qof daba socda ama sida waqtigan dambe aynu raahna laga dhaxalo ama dhaka cid kale xambaarsan ha noqonin athar baa ku soo arooray ibn mas'uud laga wariyo oo culimada qaarkood ay daciif ku ahaayeen daciif ay ku sheegeen idan marka waxa muhiim ah inaanad naftaada ilaawin la tansa nafsaka wa shakhsiyatak
walaa tansahir fi laakhariin inaanad dadka kale ku dhex milmin oo shakhsiyadaada iyo naftaada aanad ilaawin waa muhiim ilaa haddii dadkaa dhex hadlaan dhaka kale lagu xambaariyo waxaad ku dhawaaqaysaa afkaar cid kale unay noqoto oo nacamlo dad kale aad noqoto waa musiibo sidaa daraaddeed ayaad ogsoonaanaysaa bani aadamka sidan ilaahay u kala duway muuqaalkooda ayaa mawaahibkooda iyo maskaxdoodana rabbi u kala duway subxaana wa tacaala marka mawhibada iyo maskaxda ilaahay uu ku siiyey adugu isticmaaloo caqligaaga ku fikir qad calima kullu unaasin mashrabahum walikullin wijhatun huwa muwalliiha qof waliba mashrabna waa iska leeyahay jiha uu u jihaystana wuu leeyaho isaga ayay tahay inuu samaha iyo xumaanta kala miisaamo daliilkana raaco sidaa daraaddeed baa aad qur'aanku ugu eedeeyaa nimankii carbeed ee odhanayay uun aabbayaashayaannu waxaan ka soo gaadhnay wixii uun baannu ku soconaynaa qur-aanku aad iyo aad buu eedayaa idan waa lagama maarmaan qofka bani aadamkiina waa waxyaabaha uu xayawaanka kaga duwan yahay in wixii loo sheegaba aanu qaadanin wixii san iyo wixii xun inuu kala miisaamo qodobka tobnaad nasaa'ixa ka midii waxa weeye aliimaanu bilqadaa'i waalqanaacatu bihi qofku si uu sacaado wanaagsan u helo oo culayska iyo lowdhka iyo dhibka haysta uga fududaado waa inuu rumeeyaa go-aanka ilaahay iyo qorshihiisa waxa ilaahay uu qadaro waa inuu ku qancaa rumeeyaana saasuu qur-aanku ina barayaa ilaahay baa wuxuu uhi maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ilaa fii kitaabin min qabli an nabra'aha ina daalika cala allaahi yasiir wax kasta oo dhibaato yimaada eriyo dhulba ilaahay baa sii qadarayoo kitaab buu ku sugnaa intii aana ifka uba soo bixinba wax qoran bay musiibadaasi ahay idan markaa wax kasta oo dhaca ha u qaadan waayin oo u qaadan waayaanay kugu noqonin caqiidada wanaagsanina waa sidaas man yurid illaahu bihi khayran yusib minhu man yurid illaahu bihi khayran yusib minhu nebiguna wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka ilaahay uu khayr la doono waxuunbuu soo gaadhsiiyaa marka dhibaatada soo gaadhaysa qofka waa inaanu odhan waayo sida had iyo jeer dadka diinla'aanta iyo kufriga uu haysto maxay ku dhacday wax kasta oo sababahoo keeni lahayd waxaan inaan kaga gaashaanto waan sameeyey maxay igu dhacayaan saa daraaddeed baa rasuulku inoo diiday sala allahu calayhi wasalam markay wax dhacaan inuu qofku idhaahdo low annii facaltu kada wa kada haddaan waxaa samayn hadduu hebel halkaa waddadaa iska dayn lahaa miyaa gaadhigaasi la qallibi lahaa imise jeer baan halkaa ha mari hadduu waxa hebel ka hadhi lahaa balaadaasi miyay dhici lahayd low ereyga ah haddii taftaxu camala shaytaan rasuulku waxa uu leeyahay albaabka shaydaanka ayay kugu furaysa markaa xalkuna waxa weeye qadara allaahu wamaa shaaa facal ilaahay baa qadaray wuxuu ilaahay qadarayna ma baaqanayo adigoo sababaha qaadanaya aad ku nabadgelayso oo aan lagu lahayn naftaada dayac haddana qadarka ha ka soo dulboodin waana midh aynu dheernahay dadka diinla'aanta ku sugan oo dee 6dii arkaanu iimaanka maxaa ka mid ah aliimaanu bilqadar khayrihi wa sharrih dhib iyo dheef wixii ku soo gaadhaba waa inaad ogsoonaataa wax qoran inuu yahay qodobka 11aad nasaa'ixa ka mid ah min asbaabi sacaada waxa weeye inna maca alcusri yusra inaad ogaato weeye dhib walba inay dheefi ka dambayso culays walba faraj baa ka dambeeya lan yagliba cusrun waaxidun yusrayn marka adduunyaduna yusriga iyo fudaydka ayaabay u badantay haddaad gaajaysantay dhereg baa kuu soo socda haddaad haraadan tahayna cokanaan baad heli doontaa hurdada soo jeedka hurdaa ka dambayn cudurkana caafimaad baa ka dambayn cabsidana deganaanshaa ka dambayn